Asalaamu calaykum asxaabteyda qaaliga ee dhammaantiin kusoo dhawaada Cooking Socod dhammaantiga cusubtiin kusoo dhawaada family subscribe saar kambaleelkana furo video walbaan soo galay si dhaqsi ku soo gaaran soo asxaabteyda qaaliga ee maanta waxaan sameynaa cabitaan aad iyo aad u macaan badan isku nafaqay kartid aad isku naaxi kartid marka insha Allah sidaan sameynaa waxyaabaha aan ka sameynaa idin sinaya asxaabta maantiga cusub kusoo dhawaada channelkay Cooking Socod channel labaad ayaan leeyahay oo qurxinta daawil arkin kusoo dhawa magaciisa waa kee linkigiisina waxaan soo dhigayaa videogan haddaan soo galnaa comment-ka dhexdeeda linkiga pin ayaan saarayaa linkigaas markaa raacad waxay ku geynaa channelkayga oo qurxinta sidaas oo soo booq kartaa subscribe yaa saari kartaa marka inta asxaab maantiga cusub kusoo dhawaada channelka oo qurxinta waxyaabo badan ayaan soo geliyaa oo dhammaantiin ka faa'iideysiin marka idin dhaafin channelka qurxintan haddaa weli subscribe saarin kusoo dhawaaw channelka labaad soo markaad wax idin sinay sidaan u sameysanayna maanta cabitaankan sidaas la socda dhammaantiin daawasho waan asxaabta marka asxaabta sheyga horaan u baahanaa waxa waaye porridge-ka midka oo mishaarada laga sameysto oo gasaaca kaas ayaan isticmaalaya marka 3 qaado ayaan ku shubanaa bakeerigaas dhexdeeda qiyaastaan sameysanaya maanta 2 bakeero cabitaan ayaan sameynaya marka 3 qaado oo porridge-kaas ayaan ka sameynaya hadda cabitaanka inaa badsidid aad rabtid marka porridge waad u badinaysaa aniga qiyaastaan sameynaa 2 bakeer waa marka 3 qaado oo porridge ayaa bakeerigaas aan ku shubay kadib waxaan ku darayaa biyahaas wax yar qiyaasad nus bakeer qiyaastiisa biyo ayaad u baahan tahay inaad ku qasid wax yariis ayaan qasinaa porridge-ka ilaa adiga 2 daqiiqo oo kale ayaan sii dhaafayaa inuu qasmo intaa oo yacni porridge-ka inuu qasma diyaar noqonayo waxyaabihii kale ayaan sii diyaarsanayno cabitaanka aan ka sameysanayno soo markaad wax yariis si fiican isku qasaya ilaa 2 daqiiqo meel ayaan dhigayaa 2 daqiiqo kadib ayaan isticmaalaynaa porridge-kaas oo biyaha aan ku qasay markaad sheyga labaad aan u baahanahay moos waaye soo cabitaanka maanta moos ayaan ka sameynaya marka mooskane 1 xabo bar 2 xabo ayaad ku darsan kartaa si aad rabtid waaye mooska daarabtid inaad u badiso u badsan kartaa laakiin aniga intaan ka sameynaya 1 xabo bar oo moos ayaan ka sameeyay marka cabitaanka intaan sameysanayo soo markaad mooskaas ayaan jarjarayaa makiinadaas jaagaas aan ku shiidaa ayaan ku shubanaya kadibna waxyaabaha kale aan ku dari doono sida kale aan u sameysanayn idin sina cabitaankan maanta sidaas la socda markaad waxaan sameynaya porridge-kii aan soo qasay ilaa 2 daqiiqo oo biyaha aan ku qasay ayaa meesha ku darsanaya waa aragteen siduu u qasmay sida caano oo kale si naqana markaa qastid kadibna si fiican ayuu yacni jilaac u naqanaya porridge-ka markaa qastid soo marka sidaas ayaan u qasay soo hadda waxaan sameynaya mooskii jaaga aan ku shubo porridge-kan meesha aan ku dhex shubanaya waxyaabaha kale aan ku darsan doono iyo sida kale aan u sameynaya idin sinaya kadib waxaan ku darsanaa loos ayaan ku daraa marka porridge-ka aan ku daro kadib loos ayaan ku darsanaa looskana 4 xabo ayaan ku darayaa looskan magaciisa meesha idin u qorayaa inta asxaab oo fahmeen looskan isticmaala mid ku yahay marka 4 xabo ayaan ku darsanaa 2 bakeer cabitaan ayaan sameynaya kadibna looska markaan ku daro hadda waxaan ku darsanayaa caano ayaan ku darayaa caanahan isticmaala caanaha waa midka fresh-ka lo'da kaas ayaan ku darsanaya marka sidaas la socda 1 bakeer qiyaastiisa caano macayaad u baahan tahay kaas ayaad ku darsanaysaa soo marka caanahan ku darayna caano qabow waaye kadib waxaan ku darsanayaa caano garoor ayaan ku darayaa oo midka strawberry-ga kaas ayaan ku darayaa yogurt waaye yogurt-ka aan ku darsanayna waa midka macaanka marka sidaas la socda sukar ayuu ku imaadaa caanaha midkaan isticmaalaya garoorka asigoo plain ayuu jiraa haddaa yacni sukar rabin plain-ka ayaa isticmaalaysaa haddaa rabtidna yacni midka sukarta midkaan isticmaali kartaa soo marka waxaan ku darsanayaa 3 qaado qiyaastiis ayaan ku daraa caano garoor ama caano fadhi sida u taqaantiin
kadibna waxyaabaha kale aan ku daraa idin tusinaya. kadib asxaabta hadda waxayaan ku darsanayaa 2 qaado waxayaan ku darayaa protein powder kaas ayaan ku darsanayaa. marka proteinka powderkeeda aad ayuu u fiican yahay hadaa rabtid inaad cabitaankad ku darsid, hadaa rabtid inaad cayshid maasal fiican inaad yeelatid, marka zaaid ayuu u fiican yahay. 2 qaado qiyaasiis ayaan ku darsanayaa. kadib hadda waxayaan ku darsanayaa caanaha macaanka ayaan ku darayaa 1 qaado iyo bar caano macaan ayaan ku darayaa. caanahaas aan isticmaalaya condensed milk waaye. marka asxaabta asigoo diyaar ayuu jiraa ayaa iibsanaysaa, hadaa rabtidna guriga ayaa ka sameysan kartaa. guriga waan ka sameeyay videogiisan channelkii ayuu ku jiraa oo weliba si easy ah guriga ayaa ugu sameysan kartaa hadaa rabin inaad banaanka soo iibsanin. marka sidaan u sameeyay caanaha macaanka condensed milk guriga channelkii ayuu ku jiraa, meesha ayaa ka fiirsan kartiin. marka 1 qaado iyo bar qiyaasiis ayaan ku daraa because caanaha zaaid ayuu u macaan badan yahay, sukar badan ayuu ku jiraa. ma u baahantid wax badan inaad ku dartid, 1 qaado iyo bar markaa ku dartid enough waaye. waxyaabiyaan isku dardara wax yariis ayaan isku qasay, kadibna daboolka ayaan saar waan soo shiidayaa. markaa shiidaysa si fiican u shiid, daqiiq ka dhig sida looska si fiican u shiidmo. markaan soo shiiday kadibna sidaas ayuu noo noqdaa cabitaankeena. cabitaan aad iyo aad u macaan badan waa aad u nafaqaysan oo dhammaantiin ka faa'iidi doontiin. waxyaan rajeynayaa idinkan inaad baroowey doontiin. marka hadaa rabtid wax badan inaad sameysid waad u badsanaysaa waxyaabihii aniga aan ku daray aad u badanaysaa. laakiin hadaa rabtid qiyaasta 2 bakeeri inaad sameysid intaan qiyaas aad ku sameysanaysaa. marka cabitaankan sameysidna talaajada inaad gelisid ma u baahantid, isla markaas aad cabaysaa. jas caanaha markuu qaboob yahay aad ku shiidaysaa, kadibna cabitaan qaboob aad iyo aad u macaan badan waaye. ilmahana waa sii kartaa hadaa rabtid inaad ilmaha siisid cabitaankan waad sii kartaa, waa ina ka heli doonaan insha Allah. marka asxaabta cabitaankeena sidaas ayuu diyaar ku noqday. kusoo dhawaada dhammaantiina. asxaabteeda qaaliga I hope insha Allah dhammaantiin inaan ka faa'iideen recipe-gan maanta cabitaanka idin sameeyay. I hope adinkan inaad baroobay doontiin videogan hadaa ka faa'iideen. marka videogan like-tiisa sii share garaysi walaalaaga asxaabtaada arkaan ay ka faa'iidaan. hadaa maanta nagu cusubtid kusoo dhawaad family subscribe saar gambaleelkana furo video walbaan soo gelisay dhaqsi kusoo gaaraan. asxaabteeda qaaliga videogan oo maanta cabitaanka marka intaas ayuu ahay. until then insha Allah next video ismaqli doona with new recipe. dhammaantiina khayr badana idiin dhaaf adduunka meel walba ka joogtaan. and as always daacadigu xasuusta. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.